dhalinyaradan go'aansatay in ay ku soo biiraan militariga Soomaaliya ayaa tiradoodu waxay gaaraysaa ku dhawaad 400 waxayna ka kala yimaadeen deegaanada dawlad goboleedka Hirshabelle. dhalinyaradani ayaa sheegtay deegaanada ay ku noolaayeen in ay uga soo carareen kadib markii kooxaha argagixisada isku dayeen in ay si qasab ah uga mid noqdaan maleeshiyada argagixisada al-shabaab saahata ay go'aansadeen in ay ku biiraan militariga Soomaaliya si ay dadka diinta uga difaacaan. saahata waxay sheegeen in ay go'aansadeen in ay ku soo biiraan militariga Soomaaliya si ay dadka diinta uga difaacaan al-shabaab iyo kuwa la midka ah. maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo horkacaya gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa maanta waxa ay gudoonsiyeen dhalinyaradaasi neef geel ah si ay u dhiirigeliyaan waxaana hadiyadaasi u gudoomay taliyaha guutada saddexaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Ibrahim Yusuf oo ka mahad celiyay deeqdaasi maamulka gobolka uu soo gaarsiiyay dhalinyaradani sida mutadawacnimada ugu soo biirtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan aad u mahad celinaynaa maanta geela oo noo keenay gobernatooraha gobolka oo noo keenay oo uga mahad celinaynaa u keenay ciidamada cusub ee sida mutadawacnimada ku soo qorta xoogga dalka ciidamada gobolka noqdaan ay qorsheysteen kuna qaadanayaan tababarka geelaas oo u keenay gudoomiyaha gobolka ayaan aad uga mahad celinaynaa. waxaysan halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan wuxuuna jeediyay khudbad dhiirigelin ah. maanta waxaan maartay ciidanka cusub oo tababarka loogu furay dad tababaraayo oo hami u leeyihiin ciidanimada inay maartay qayb qaataan difaaca wadanka ama difaaca gobolka ay ka qayb qaataan yihiin. run ahaantii waa dhalinyaro aad iyo aad spiritkooda u wanaagsan yahay. annagana hadduu Ilaahay yiraahdo in Allah intaan kari karno waa la garab istaageynaa ka gobol ahaan. waxaa ka muuqato inay maartay wax badan ay ka dhiman yihiin. run ahaantii ay maartay libis haysan ay maartay meel adagoo maartay qoraxdan ay maartay tababar ku qaadahayeen. marka hadduu Ilaahay yiraahdo maanta maartay inaan xoogay ay ku qadeeyaan neefkaas ayaan maartay iyo u soo garanay waxa kale oo dhiman hadduu Ilaahay waa isla joognaa ka gobol ahaan. hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan ka qayb qaadaynaa dhisitaankooda iyo horumarkooda iyo sidii tababarkooda u gudalaayeen ayaan kaalinta nooga aadan ka qaadaynaa. ayagana waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwa mustaqbalka gobolkan iyo qaybo kamid ah maarta wadanka cadawga ka xoreey inay noqdaan rajaynaa. dhalinyaradani ayaa xeran military oo ku taala gudaha magaalada Jowhar waxa uu tababar uga socday ku dhawaad 2 bilood waxayna u heelayeen in ay dadkooda diintooda ay ka difaacaan cadow kasta oo ku soo duula oo diidan midnimada Soomaaliyeed. Abubakar Maxamed Baadle Radio TV qaranka Soomaaliyeed caasimada dawlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar.